waxaa xafiiska booliska ee gobolka Jarar lagu qabtay shirkii qiimeynta warbixinta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay hay'adaha nabadgelyada. Shirkan qiimeynta oo loo qabtay dhammaan bataliyayaasha booliska ee 12 degmo ee gobolka Jarar iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka nabadgelyada ee gobolka Jarar iyo komishineerka booliska ee gobolka Jarar. waxaana shirkan qiimeynta ka hadlay hoggaanka nabadgelyada ee gobolka Jarar iyo komishineerka booliska ee gobolka Jarar. maadaama 12 degmo iyo councilkiiba halkan ay ku sugan yihiin looguna talagalay shirkan sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka aynu ka haynay deegaamadii aynu ka nimid. shirkan waxaa loo baahan yahay ugu faa'iideysano sidii loo dardargelin lahaa shaqada, sidii xoogga loo saari lahaa saraynta sharciga. xilli waxaa lagu jiraa la yiri dadkii xor baatiin xorriyad qolkii loo fasaxay, shacabkeena ay ku dhaxafteen oo arkeen xorriyad qolkiiba in qof walba wuxuu doono sameeyo kiina xoogga saartaan isku xidhka bulshada iyo booliska waaran kala darmina dawladda. arrintaas dadka hirgasho waxaa badan inoo soo tagali cid la saraynta sharciga hirgelisan waa inteena meesha fadhido weeyaan. marka waxaan rajaynaynaa inaad waxaa badan halka kala faa'iido markaad noqotaan dawladda. waxaan maanta halkan saaka isugu yeernay 12 degmo iyo maamulka magaalada taasoon uga dan lahayn qorshihii noo yaalay maxaan ku rahaa 6 bilood ee sanadla ahaa in wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoomin inaan halkan ku eegno. sidoo kale qorshahaas saraynta sharciga, adeeg bixinta xuquuqul aadamaha, isku dhaca qabaa'ilada iyo wada shaqaynta hay'adaha nabadgelyada qaabkaas in maxaan ku rahaa wixii dhaliil ka jirta lafteeda inaan gud marno muhiimadda weyn. marka hadda shirkan aan isugu yeernay taliyaasha iyaguna mar wixii fikirkooda ka soo jeediyaan taas weeye marka mid ay weynayaan isku imanay. shirkan qiimeynta ah oo 6 biloodba mar la qabtay ayaa waxaan wax ka weydiinay qaar kamid ah taliyayaashii ka soo qayb galay shirkani. shirkan hadda qiimeynta aan galay waa warbixintii 6 bilood rubci labaad markaas 12 degmo iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur warbixintan aan ka soo jeedinaa sharaynta sharciga, isku dhaca qabiilada, dadgeynta shaqada 6 bilood wixii noo qabsoomay iyo waxa noo qabsoomin oo dib ka saxna waxa noo qabsoomay hadii la yiraahdo waxa noo qabsoomay 6 bilood u dambeysay dhammaan shacabka ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur inaan ku abaabilo inay ka waantoomaan foodlada iyo kala dambeyn la'aanta inaan u qabano shirarkii isku xidhka booliska bulshada dhammaan 10 qabale ee maamulka magaalada Dhagaxbuur anagu ku dardargelinayna fahansiinayna sharaynta sharciga in la aamino oo sharaynta sharciga la ilaaliyo. halkan waxaan u nimid shirkii 6 bilood warbixintii ahayd baan u nimid 17 qabalay weeye degmada dig wacyi belin badan baan ka bilownay booliska haddaan nahay in badan baan anaga shacabka ka wada shaqeynay. runtii markii la gaaray dadka shacabka ee jooga dhalinyarada ha ahaato odayaasha ha ahaadeen iyo haweenkaba dadkaasoo dhan waxay ballan qaadeen inaan nabadgelyada si fiican uga wada shaqeyno, isku xidhka bulshada iyo booliskana aanu si fiican uga dhamaystirro waxyaabaha noo qabsoomay ee hadda naga ballan qaadeen shacabkuna taasaa ka mid ah.